روباب لحد ayaa ka daayay magaalada Burco maalintii labaad roobabkan oo saaka mar labaad ka curtay magaalada Burco ayaa ahaa kuwa daayay muddo ku siman 8 saacadood kuwaas oo aan ilaa hadda ka qaadin magaalada Burco roobabkan ayaa hakiyay socodka gaadiidka noocyadooda yaryar sida tigta ama bajaajta waxaana mar aan ku soo wareegay jidadka waaweyn ee magaalada Burco ay laamiyadu ahaayeen kuwa soconaya sida togo oo kale goobtani waa bartamaha magaalada Burco waxaana qulqulaya biyo aad u xoog badan isla markaana ay baabuurta yaryari si xawliya ugu gudbayaan waxaan kaloo booqday meelo kamid ah wadooyinka biyo mareenka ah wadadaas oo markaad eegto aad moodayso doox weyn waxaana goobtaasi ka gudbayay qaar kamid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco adigoo qaarkoodna kaga gudbayay biyahaasi uro iyo wixii la mid ah ilaa hadda ma jiraan wax khasaare ah oo roobku geystay marka laga yimaado wadooyin cusub oo aan loo sameyn meelo ay biyuhu ka baxaan kuwaas oo burbur laxaad leh ay u geysteen biyahaasi isku soo wada duubo roobabkan ayaa lagu soo waramayaa inay gabi ahaanba ka deeyeen tuulooyinka iyo degmooyinka hoos yimaada magaalada Burco Shaafici Maxamed Ibrahim Kalsan TV magaalada Burco